waa qiso xanuun badan oo cinwaan looga dhigay way i arki waayeen. Sanadku wuxuu ahaa 2007 bishii afraad. Xaafadda deriska dhan way qaxeen. Dagaallo iyo madaafiic ayaa socda. Annaga eeyay ayaa noo diiday inaan qaxno, laakiin hadday ogaan lahayd waxa soo socda, orod ayay uga bixi lahayd. Waxaan ahaa 14 jir, orodka reerka ayaan ahaa. 4 carruur ah markaas joogtay ayaan ugu weynaa. Raashinkii guriga wuu naga dhammaaday. Cabsi, gaajo iyo dagaal iyo qaxar ayaan ku jirnaa. Intaas waxaa noo sii dheereed mugdi iyo koronto la'aan. Niman Itoobiyaan ah ayaa dadka layn jiray. Habeenada ka mid ah ee aan weligii ilaawi doonin ayay ahayd. Abtigay oo gaari wata ayaana soo maray galabtii, isagoo qax ah. Wuxuu yidhi soo baxa. Eeyo ayaa diiday. Hooyaday waxay ku adkaysatay inay baxayso iyada iyo carruurteeda. Aabe wuu diiday arrinkii. Muran iyo dagaal ayaa ka dhashay. Wuxuu yidhi bax adiga haddii aad rabto, laakiin carruurta ii dhig. Way diiday. Kadib ayay tiri hebel ayaan kuu reebayaa oo ahaa aniga ee ha kula joog. Waayahay ayuu yidhi. Carruurtii kale hooyo iyo abti reerkiisa ayay la qaxeen, laakiin aniga iyo aabe iyo eeyo iyo gabar adeerkay dhalay oo nala soo kortay ayaa guriga ku soo harnay. Mar ay 5 saac iyo bar habeenimo ahayd ayaan waxaan dareennay in guriga loo soo dhacay. Annaguna gudaha ayaan ku xirnayn. Kadib ayaan dhammaanteen wada naxnay. Aabe wuxuu ii soo kaxeeyey jikada. Digsi weyn oo sabta lagu karin jiray oo aad u weynaa ayuu igu dhex riday. Wuxuu yidhi waxaad ku celcelisaa aayaddan qur'aanka ah oo ahayd wajacalnaa min bayni aydiihim saddan wa min khalfihim saddan faaqashaynaahum fahum laa yubsiruun. Afka ha ka qaadin ayuu yidhi. Wuu iga tegey. Kadib gabadhii ayuu rabay inuu soo qariyo iyadana, laakiin nasiib xumo gudaha ayay soo jebiyeen wayna soo galeen. Habeenkaas habeen iiga cabsi iyo murugo badnayd weligay ima soo marin. Waxaa dhacday hal mar ayaan maqlay ayeeye qayladeeda iyo gabadhii adeerkay oo hal mar wada qayliyey. Inaan soo baxo ayaan damcay, laakiin cabsida ay haysay awgeed waan awoodi waayey. Kadib guriga buuq ayuu isku bedelay iyo qaylo iyo ooyin. Askartii hadalkooda ayaan maqlayaa. Waxaan dareemay guriga inay baarayaan. Aayaddii ayaan ku celceliyey. Naf iyo nololba anoo ka sabray ayaan hal marka war helay digsigii aan ku jiray in daboolka laga qaaday. Naxdin ayaan la dhiban gaaray, laakiin waxaan dhihi karaa risqi ayaa iigu dhinnaa dunida oo ima aysan arag. Iyagoo i eegaya ayay i arki waayeen. Kadib ayay xireen daboolkii. Markaan dareemay inay guriga ka baxeen ayaan is iri soo bax. Waxaan arkay eeyayaday, walaashay, aabbahay oo meyd ah oo dhammaantood ay gowracayn. Deris iima dhowa. Meeshu waa cidlo. Cid aan u cararo oo u soo sheego ma aqaan. Habeenkii oo dhan sidan u kor fadhay meydkii ayuu waagu iigu baryay. Waxaan go'aansaday inaan bannaanka u baxo. Hala i dilo ama hala i daaye. Dilka waxaa ka darnaa madaafiicda sida roobka u soo daadanaya. Waxaan xaafadaha dhex wareegaba dad ayaan helay. Dadkii ayaa dad kale keenay. Reerkaygana sidii ayaa lagu aasay. 3 bilood si toos ah uma seexan. Hooyaday markii iigu war dambaysay waxaan maqlayay iyadoo leh ceelashaan u socnaa. Ceelasha ayaan tegey oo reer qaxaya ayaan raacay. 3 maalin ayaan hooyaday ceelasha ka raadinayay. Ugu dambaynna waan helay. Murugo dheer kadib alxamdulillaah waan sabray, laakiin habeen walba markaan seexdo waan soo sasaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waa dhibaatadii ay geysteen ciidamadii xabashida ahaa ee dalkeenna soo weeraray 2007. Waxaa dhibano u ah shacbi badan ee Soomaaliyeed. Waxay gumaadeen ummad Soomaaliyeed oo weliba u badnaay dad rayid ah. Waxaan leenahay dalkeennow maxaad dibindaabiye soo martay.